munaasabad ballaaran oo meeqaamkeeda la soo agaasimay isla markaasina agab ciyaareed xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku guddoonsiinayay kooxo ciyaartooy oo kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo ee xisbiga wadani, xogayaha arrimaha bulshada xisbigaasi, kooxihii la guddoonsiinayay agab ciyaareedka iyo taageerayaal tiro badan ayaa waxa ugu horreyntiiba halkaasi hadalka iska daba maray ku dheeraaday ahmiyadda ay dhalinyaradu u leeyeen dalkani Soomaaliland iyo taageerada uu xisbiga mucaaradka ee wadani la barbar taagan yahay dhalinyarada dalka. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaahin Xayd, xogayaha arrimaha bulshada xisbiga wadani ee heer qaran Hinde Jaamac Gaani iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi iyo dhammaan taageerayaasha ballaaran ee quwadda leh ee ku sugan maanta xafladan aanu dhalinyarada lagu guddoonsiinayo dharka isboortiga ee ugu deeqday inanta la yiraahdo Cawo. dad baan maqlayay lahaa maalin ay u qabanayeen hal nin. xisbiga wadani wuxuu ka haystaa ciyaalka, xisbiga wadani wuxuu ka haystaa dad wax qabad leh oo aragti leh oo aqoon leh, waxaana ka marxaati furaysa Cawo Jaamac Aadan oo wax qabadkeedii koobaad goobtan ku soo bandhigtay. waxaan idinku dardaarayaa inaanu noqon doonin dadka idin daryeela ama idin ogaada Cawo Jaamac Aadan oo kaliya ee waxaad ka mid noqon doontaan xoogaga iyo baalasha ay leeyihiin xisbiga wadani. labadan kooxood la kala yiraahdaa koox waxa la yiraahdaa Nageeye, kooxna waxa la yiraahdaa Jasiira. labadan kooxood iyo koox kale oo saddexaad iyo koox aan anagu hayo insha Allah waxaan ugu ballan qaadayaa inaan wareeg u furi doono haddii Ilaahay ka dhigo ka Cabdirasaaq ahaan. dirayskan Cawo bixisay kii koobaad noqon maayo, kii labaad noqon maayo. diraysyo badan baan idin keeni doonaa, waan idaag istaagaynaa, wareegyaan idin furi doonaa, waan idin soo dhawaynaynaa. soo dhawaadaan dileenahay. maanta halkan waxaan soo bandhigayaa wajigaygii koobaad ee waxqabadka xisbiga. waxaan halkan doonayaa inaan ku guddoonsiiyo sidaa horeba loo sheegay laba kooxood oo taageerayaashayda ka mid ah. ugu dambeyntiina waxa uu gudoomiyaha gobolka Togdheer xariga ka jaray xafiis cusub oo xisbiga mucaaradka ee wadani ku yeelan doono xaafadda Tuwali ee ku taala magaalada Burco. Barwaaqo Aadan Maxmed.